xildhibaan hore Hilowle Aadan Maxamed oo kamid ah siyaasiyiinta Jubbaland ayaa waxa munaasabadu ku qabtay magaalada Kismaayo waxa uu ku shaaciyay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee Jubbaland. Munaasabadan oo lagu qabtay hotel Kismaayo ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, ururada dhalinyarada, kuwa haweenka, xildhibaano iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanada Jubbooyinka. dhammaan dadkii ka soo qayb galay xalfadan oo khudbado kala duwan ka jeediyay kuwaasi oo ay ku dhiirigelinayaan kuna taageerayaan musharaxa cusub ee u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka. Gabagabadii munaasabadan ayaa waxaa hadal ka jeediyay musharax Hilowle Aadan Maxamed waxa uuna sheegay haddii loo doorto uu ku dadaali doono nabadgelyada iyo weliba isdhexgalka bulshada isla markaana horumar u gaarsiin doono dhammaan dadka dega gobolada la isku yiraahdo Jubbaland. sida awgeed waxaan go'aansaday inaan issharaxo oo tartamo baarlamaanka Jubbaland ee sharafta leh codkooda weydiisto haddii Ilaahay ugu guuleeyana raggi soo waday meesha ay hadda keeneen inaan ka sii qabto shacabka reer Jubbaland aan weydiisto inay la shaqeeyaan haddii Ilaahay idmo waan ku guuleysto oo baarlamaanka reer Jubbaland ee sharafta leh xildhibaanada codkooda ay siiyaan insha Allah waxyaalaha aan ka qaban doono Jubbaland waxa koow ka ah inaan nabadgelyada iyo amniga wax ka qabto gobolada xoreeyo degmooyinka maqan maanta gacanta lagu soo celiyo ciidamada qalabka sidana xuquuqdoodan ay helaan tayadoodan aan dhiso haddii aan ku guuleysto musharaxnimada waxaan shacabka reer Jubbaland u ballan qaadayaa meel kaste oo ka mid ah deegaanada Jubbaland inaan dhex dhigo dib u heshiisiin gobol walaalnimo u dhigo kuwa dibadda u qaxay iyo kuwa jooga labadaba aan isku dayo haddii Ilaahay idmo ayagoo walaalaha inaan deegaanadooda ku wada celiyo nabadna ku wada noolaadaan haddii la doorto waxaan rabaa insha Allah oo baarlamaanka Jubbaland ee sharafta leh codkooda ay siiyaan waxaan isku dayaa inaan horumariyo arrimaha bulshada caafimaadka waxbarashada wax soo saarka beeraha haddii Ilaahay idmo dhalinyarada maanta qurbaha ku kala carartay ama taariibka ku jirta inaan u furo waxbarasho lacag la'aan intii aan xilka hayo haddii Ilaahay yiraahdo ku guuleysto musharaxnimada oo baarlamaanka sharafta leh codkooda siiyaan waxaan ballan qaadayaa inaan dib u dhis u sameeyo dalka intii kacaanka Soomaaliya uu jiray inta ka horeysay saddexdan gobol laami ma lahayn isuma furnayn haddii Ilaahay waxaan joognaa magaalo madaxdii ganacsiga ee Jubbaland waxaan rabnaa xoolaha iyaga halkay ka dhoofi jireen magaalo madaxdii saddexaad bay ahayd Kismaayo waxaan rabaa insha Allah haddii Ilaahay laamigi halkaan aan ka qaadno haddii Ilaahay in badeecada iyada doolowna ay ka gudubto kan ka keenan aan ka soo gudbino laamigan halka ka qaadnana waxaan rajaynaynaa in ay Kenya badeecada iyada u gudubto Aadan Maxamed Degene TV-ga Somali Cable magaalada Kismaayo.